wararka ka imaanaya gobolka bakool ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka al-shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka bakool. ciidamadan oo howlgal ka sameeyay duleedka degmada waajid ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen gacan ku haynta deganada kurta iyo walaqle oo ka tirsan gobolka bakool. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iska hor imaad ay la galeen xarakada al-shabaab balse ay ka adkaadeen, waa sidoo hadalka u dhigay. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana ciidamada milatariga Soomaaliya ay weli ay wadaan dhaqdhaqaaqyo culus kuwaas oo ka wada deegaano hoos yimaada degmada waajid ee gobolka bakool. maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa sare u qaaday howlgallada ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ciidamada dowlada ayaa saak guluf colaadeed ku qaaday meel 43 kilomitir u jirta degmada waajid, waxaana la sheegay in dagaalkaasi ay ku gacan siinayeen ciidamada Itoobiya oo qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM. ma jirto weli wax war oo ka soo baxay xarakada al-shabaab oo ku aadan weerarkii saaka ciidamada dowlada ay ku qaadeen deegaanada kurta iyo walaqle oo dhammaantood ka tirsan gobolka bakool ee koonfurta Soomaaliya.